markaan waayey cid alla cid garab gasha ee ay cid waliba ka fadhiisatay waxaan go'aansaday inaan iska casilo kursigii aan u sharaxnaa baaxadda intaa leeg leh ee dhaqaalaha u baahan ee baabuur u baahan 400 oo ugu yaraan maraaqib buu u baahan yahay maraaqibina 400 ee maraaqibiintii waxay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin waxay u baahan yihiin odayaasha shaqaynaya intaasoo gaari baa loo baahan yahay inamadan shaqaynaya iyo kuwan odayaasha shaqaynaya oo dhan kharash buu u baahan yahay reerkii iska fadhiista ee kursigiisa ilaashan waaya wax kuwii horaa laga qaadanaya kuwa kale oo soo kordhay iska daaya waxaan idinkula dardaarmayaa kuraasada ilaashada markaan la tashi samaynay kursigan aan u sharaxanahay oo muddo badan ka maqnaa reerka oo berigii hore ee doorashadii kala guurkii iyo doorashadii koowaadba uu Dr. Cabdilmajiid Xuseen ku soo baxay oo maqnaa 4 doorasho kale markii aan la tashi samaynay waxaan sidii kursigii la soo celiyo ayuu u baahan yahay dabadeedna 4 kursi ayaa gobolkan faafan ama gobolka Jigjiga 4 kursi oo federaal ka jiray midkeenna uu ahaa midna jidwaaq baa lahaa Jigjiga wambo ahaa midna gariye jaarsa lahaa Jigjiga tuubo ahaa midna kan arab min jaakilil oo samaro ma ku soo baxayay marka xabadan horaa loo qaatay marka la tashi kolkan sameeyay waxaan nidhi kursiga aan soo celino la tashigii markaan sameeyay waxaan dhalinyartan aqoonyahankii shahaadooyinka sare haysta bal inay isku sharaxaan maanta macnay kolka xilligii kala guurkii waxa ku soo baxay Dr. Cabdilmajiid Xuseen iyo doorashadii ka dambeysayba golaha baarlamaanka ee heerka lilna wuxuu ahaa xilligii hore ee kala guurkii 12 afartii degmo buu ahaa gursum xilliga oramada ayaa waa la xanibay gursum ee waxay 40 degmo xarshin iyo awbarre iyo Jigjiga iyo maxaan ku raahdaa xarshin marka afar waxa ka soo baxay 12 xildhibaano midba saddex buu ahaa deegaan kolka halka waxaan ku lahayn 4 qolada kale ee na waxay ku lahayn 4 xildhibaan iyaguna ku lahayn waan sinan marka waa la sinaa xilliga kala guurkii xilligii dambe anigu aan xildhibaanka noqday ee doorashooyinkii dambana 30 xildhibaan buu noqday maxaan ku dhahdaa markii macal gursumiye la isku daray iyo Jigjiga iyo awbarana lix laga dhigay dabadeedna anagu reer ahaan waxaynu lahayn 8 xildhibaan reerka kaliya inaga badan wuxuu ahaa jidwaaq wuxuu lahaa 9 xildhibaan buu lahaa hal xildhibaan buu dheeraa maantana halka federaalka halka golaha baarlamaanka waxay iyagu leeyihiin maanta 22 xilligii cabdi ee waaday waayadii ayna dhaafeen inaguna 8 dibo matii gooyo waa 7 ka baarlamaankiina xabadii 4 sida aan uga soo sheekeeyay 4 reer baa lagu kala lahaa Kenya soo celin markaan la tashi samaynay dhalinyaradii shahaadooyinka sare haystay ayaa dhalisay sharaxa markay diideen ay dhahdeen anagu gali mayno odagii ah iyay soo xayday dabadeedna waan galay waan soo sharaxay ololihii maxaan ku raahdaa kaarkii iyo si fiican markaan soo qaadanay kolkii aan hadaba soo bandhignay aanu magaranaysaa dadkii heeliyaho la garab joogsado waayo halkan aan ka sharaxanahay waxa weeye degmada xarshin qabaleega ugu sheeya degmada awaare ayuu xuduud la leeyahay degmada baabilina qabaleega ugu sheeya wuxuu la leeyahay fiiq buu 20 kilomitir jiraa inta leeg awaare iyo inta fiiq u dhaxaysa ayaan ka sharaxnaa dabadeed intaas waxay u baahan tahay heeliyaho iyo dhaqaale u baahan tahay waana kursi magaranaysa day la soo celiyo loo baahnaa dhaqaale iyo heeliyaho baa loo baahnaa dabadeedna dadkii aqoonyahankii odayaashii aan u bandhignay ee arintaasi inay nala garab galaan si fiican oo lama hawl gelin ee waxay cid waliba waxay yiraahdeen ma garanaysaa fiican teesco alla ilaa kursi baad soo celinaysaa de hay waxaan u baahnaa intaan kursi soo celin heeliyaho nala garab gashaan waxay yiraahdeen Jibriil Abukar ka soo bilow war Jibriil Abukar ma sharaxnay waxaan u sharaxnay reerka oo dhan baan u sharaxnay tiri waa sax hadaba halka aynu tagno Jibriil Abukar markaan tagay Jibriil Abukar oo tamad reexaad ka soo bilow dibiireen halka markay marayso de kursigana reerka dhan baan u sharaxnay Jibriil Abukar iyo reexaad midna ma sharaxnayn marka heeliyaho reerkii markuu nala garab gali waayay uu joogsi nala garab gali waayay maxaan ku raahdaa kolka laga reebo koox dhalinyara oo togo jaale iyo harta sheekha joogta waxa la wax ficil muujiyo garab gala markaan weynay kursigeena uu noqday kursiga baaxadda inta leeg leh ee dhaqaalaha u baahan ee baabuur u baahan 400 oo ugu yaraan maraaqib buu baahan yahay 400 ee maraaqibiintii waxay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin
waxay u baahan yihiin odayaasha shaqaynaya intaasoo gaari baa loo baahan yahay inamadan shaqaynaya iyo kuwan odayaasha shaqaynaya oo dhan kharash bay u baahan yihiin markaan waayey cid alla cidi garab gasha ee ay cid waliba ka fadhiisatay waxaan go'aansaday inaan iska casilo kursigii aan u sharaxnaa sidaa iyo nabadgelyo waxaanan idinkula dardaarmaya reerkii iska fadhiista ee kursigiisa ilaashan waaya kuwii horaa laga qaadanaya kuwo kale u soo kordhay iska daaya waxaan idinkula dardaarmaya kuraasada ilaashada dhigan fadhi uga noqda